على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد الرسول ملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. dhalinyaro su-aashii weydiinta aada isoo weydiisay waxay ahayd saba ma af soomaali ba. saba waa magac suurad oo ilaahay soo dejiyey weeyaan. saba bin yasjub bin qahdaan ayaa la odhan jiray. carabta ayaa u kala baxda qahdaan iyo reer cadnaan. taa mar kalean u imaan doonnaa haddii alla yidhaa. waxay ahayd أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان للسبعين في مسكنهم جنتين عن يمين والشمال. يعني بيرو أيو كسي إلهي كسي سبع دنك ميدك يدنك بدحبة مركا يعني دول كان سبع أيو كمدها ويبدأ ما يسنجرن هالكا يمن إيو سكاجدويهن soomaaliya qaas ahaan jabuuti ku aadan ku beegan aad bay iskaga dhow yihiin. waxa weeyaan marka jugraafiga beri hore way isku wada dheganaan dhulka dhan waa is haystay, laakiin iminka waxa weeyaan waxyaalo badan ayaa soo dhacay. yani waxyaalo badan oo maalan ay ka mid yihiin yani waxyaabo awood rabbaani ah iyo mid gacanta bini aadanka maaragtay u sabab ah, ama kanaala ha ahaato meel la marino ha ahaadeen ama maaragtay siyaalo kale. weydiinta marka buuraha ma daalo unbaa iyo buur heybe unbaa, weydiin noocaas ayaa laysoo weydiiyey. maaha way fara badan yihiin, laakiin tusaalaan usoo qaataa labada ugu qadiimsan ee ugu ballaadhan ee aahaarta faraha badan ee yaalaan. buuro kaleba way jiraan, buurahan mardha oo maaragtay kelinka ka jira. yani waa waxyaalo badan baa jira. buurahan dhulkan wadacaliga dhulkan janaakisha ka jira oo taariikh ballaadhan taala laftigooda. yani waxa weeyaan aathaar fara badan baa taala dhulka. waa sababta aan mar walba aan u idhaahdo archaeologist, ethnologist, philologist iyo dadka taariikhda baara ee taariikh yaqaanada ah inaad noqotaan. waddankii kaalaya idinkoo afartaa cilmi wata oo anthropologist ah, oo archaeologist ah, oo philologist ah, oo ethnologist ah. kolkaa waxa weeyaan wax badan baad soo saaraysaan. waxaana loo baahan yahay aqoontii baa loo baahan yahay. aqoontii baa loo baahan yahay. marka aqoontiina yaan ka doonaynaa, adigaan kaa doonaynaa dhalinyaro. meeshaad doontid joog, aqoontaa la imow. dalkan aathaar fara badan ayaa taalla. waxaan lagu gaari karayaa adigoo barta qur-aanka inaad baratid ee tafsiirkiisa baratid ayaan ku gaari karnaa. kolkaa waxaa dib u bilaabanaysa midnimadeenni ayaa dib u bilaabanaysa. waa arrin ballaaran. nairobi gabadhii hurdada toosa ka toosa hurdadan aqoontiini weeye waxa uu sugaya dalkan. idinkuna sidii gaaladii baa waxoodii sii wadataa manhajkii waa dadkiina isticmaalsanaya anaga shalay. maantana manhaj buu inoo soo dejinaya, waan raacaynaa. maha may waa qalad, iska diid. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waxaan idin xusuusinayaa cashirkii raadkii nabi suleymaan calayhi salaam weli wuu socdaa. faahfaahinno dheeraad baa jira casharka xiga ee saba ku saabsan. kan wuxuu ahaa weydiimo soo weydiiseen ardayda qaar soo weydiiyey ayaan ka jawaabay, aan ka raridayay. saba isan ahayn maaragtay magac soomaali, uu yahay magac ilaahay soo dejiyey oo qur-aankiisa ku soo dejiyey oo ku magacaabay suuraddana dhulkaas ayaa loogu magac daray. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.